gudoomiyaha banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi way weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa magaalada Caynaba ka dhigay dhismaha baan casri ah oo laga dhisayo gudaha magaalada Caynaba. Bankan cusub oo laga hirgelin doono gudaha magaalada Caynaba oo qayb ka ah mashaariicda kala duwan ee dhinaca horumarka ee xukuumadda Soomaaliland ka wado gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay kana mahadnaqay maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo barasaabka gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed. halkan marka hore waxaan uga mahadcelinay Ilaahay mar labaadka gudoomiyaha banka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa maanta noo dhagax dhigaya bangiga dhexe ee gobolada bariga laga maamuli lahaa ku soo dhawaada gudoomiyaha aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa anigoo maayirkii waxaanu bixinay bogcadii ugu wanaagsaneed ee ku taalay degmada Caynaba gudaheeda. maanta kadib waxaa runtii farxad gaar noo ah haddaanu nahay gobolkii Saraar degmada Caynaba inaanu maanta runtii naloo dhagax dhigayo oo gudoomiyaha banka runtii uu tamar badan iyo juhdi badan geliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii isaguna amarka bixiyay in laga dhiso Caynaba baan qurux badan oo runtii laba dabaqa ilaahay bayna horta ugu xamdi naqaynaa mar labaadna waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo gudoomiyaha banka ee intii ka soo shaqeysay. waa fikrad cusub ku soo birtay qarankan waa fikrad cusub oo ku soo burtay in banki institutionka bankiga aynu dhisno dhaqaaleenu kubci maayo oo kici maayo haddaan institutionada bankigu inoo dhismin taasa horta keentay in maanta Caynaba joogno alxamdulillah inaan wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleebaan Warsamo Guuleed iyo waliba wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa gudoomiye Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ku tilmaamay mas'uul ku dhiiraday kana dhabeeyay inuu u hagar baxo horumarinta bangiyada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan halkan la qabaa inaan mahad ballaaran ugu celino gudoomiyaha banka Cali Ibraahim Baqdaadi oo run ahaantii maanta halkan inoogu waacayno oo aynu marakan nahay oo Ilaahay inoo fudeediyay inaan marakan noqono inaan la dhagax dhigno dhismaha xaruntii banka gobolka Saraar ama magaalada Caynabo. gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa taariikhda waxaad ku geli doontaa insha Allah inaad nasiib u yeelatay inaad xukuumad kamid ah xukuumadihii dalkeena soo maratay ugu wax qabadka badneed inaad tahay gudoomiye. waxaynu markaati ka nahay dhammaanteennba horta qof baa waxaynu ogaanaynaa qof inuu systemka wax ka bedeli karo institutionka inuu qof kaliya wax ka bedeli karo ayaynu ogaanaynaa oo qaran bedeli karo oo waxa weeye degmo bedeli karo oo gobol bedeli karo sida la sheegay gudoomiyuhu intii uu bangiga yimi waxa weeyaan saddex arrimood oo cajiibaba way ina soo mareen. kow horta bahashi lacagta ahayd ee heehaabisay inamada suuqa jooga ay u hayeen ma garanaysaa miftaax wuu fadhiisiyay oo ogtihiin inay maanta waxa weeyaan bahashi sidhinka loo hayay horta isaga sidhinka u haya taas horta waxa weeyaan wax weyn bay dhaqaalaheena ka tartay. runtii sidii barasaabku sheegay waxaan ugu mahad celinayaa runtii gudoomiyaha Cali inuu runtii intuu xilka hayay Soomaaliland inuu warwarkii runtii ka biyay sarafkii la oran jiray caawara waa inta ganacsatadii baa warwarkii ka baay shaqaalihii buu ka baay soo koobayaa waa soo dhaweynaynaa gudoomiye waa soo dhaweynaynaa. marka hore waxaan ku faraxsanahay inaan maanta gobolka Saraar magaalada madaxdeeda Caynabo aynu dhagax dhigayno bankii dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. farxadda waxaan la qaybsanayaa xubnaha golaha wasiirada. ugu dambeyntiina gudoomiyaha banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaa ka xog warramay waxyaabaha ku kalifay in baan cusub ay ka hirgeliyaan gudaha magaalada Caynaba. nagala soo qayb galay xildhibaanada kuwii hore ku soo socdaba madaxda gobolka fikradda bankan Caynaba in sida loo dhiso horta madaxweynaha ka timi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Caynaba baan bay leedahay laakiinse waa yar yahay. dad baa ilaha maxaa bildhigada inta looga dhisi waayay magaalooyinka waaweyn Hargeysa iyo Burco. anigu fikrad ka gedisamaanu haysanaa oo oranaysa in gobolada lagu fidiyo banka oo waliba mustaqbalka inay boqol soo jiraan ama ku soo ugu yaraan loogu talagalo waayo wadanku uu korayaa dhaqaalihiisu uu korayaa. Jaamac Bawdacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.